الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo dhammaanba ummadda muslimiinta ahi ay u dabaaldegayeen maalinta barakaysan ee Ciidul Adha ayaa waxa bulshada ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo deegaanada hoos yimaada ay u dareereen oogitaanka salaada Ciidul Adha waxaana miskiidka jaamaca ee qadiimiga ee magaalada Boorame khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay Sheekhul Baladka gobolada galbeedka Soomaaliland Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa waddankeena inuu ka dhigo waddankee barwaaqo u ka dhigo nabadgelyo aan ku noolaano dambi dhaaf iyo maqfira Ilaahay baan weydiisanaynaa ciidaa weyna Ciidul Adha ee shalayna waqufkii Carafa la joogay waxaan ugu baaqaynaa caalamul islaami meel kasta ay joogaan nabad ayaan ugu baaqaynaa inuu Ilaahay nabad ka dhigo ayaan ugu baaqaynaa halkan waxaan uga diraynaa oo kale ceelaf weyn labadii beelood waxaan halkan uga dirayaa bogaadinayno oo ku bogaadinayno nabadgelyadii ay qaateen si aad waxaan ugu amaanaynaa labadii beelood ee xidhaalahooga ahaa sida iyaguna ay uga qayb qaateen arinta ay uga qayb qaateen ilaahayna waxaan u baryaynaa inuu u adkeeyo nabadgelyada oo adkeeyo dhankooga waxa iyaguna hambalyo iyo bogaadin hawada u mariyay dhammaanba ummadda muslimiinta iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal salaadinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaas iyo goboladaasi waxana ay sheegeen waxaan halkan Ciidul Adha ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiintu meel kasta joogto waxaan leenahay ku ciid wanaagsan khaasatan ummadda ku nool qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya salaamaya ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliland waxaan kala oo salaamaya madaxweyne ku-xigeenka marwooyinka golaha wasiirada baarlamaanka guurtida dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambalyo ciideeda inuu Ilaahayna gaarsiiyo waxaan maanta oo maalin farxada oo Ciidul Adha aan ku jirno waxaan hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan madaxda kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo guurtidaba dhammaan halkan waxaan ka hambalyeeyaa ummadda islaamka meel kasta joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan leenahay tii bisheeda dambana liibaan iyo barwaaqo iyo bash lagu gaaro Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana waa salaamaya ummadda muslimiinta aan u jeedaa waxaan leeyahay sanadkiisa barwaaqo bash Allah inoo gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba qaybta doontaba ha sheegata waxaan leeyahay iyadana waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan hambalyeeyaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Axmed Cawaale Cumar Axmed Bigays telefishinka caalamiga ee Som News Boorama